ninkan dilaaga wuxuu iska dhigay qof gacantiisa midig jaban tahay isagoo qori ku qariyay gudaha faashid uu gacanta ku xiray. Qorshihiisu wuxuu ahaa mid fudud oo ah inuu dilo nin taajir ah oo kursi curyaana ku fadhiya kana qaato lacagtiisa abaalmarinta ah dabadeedna nolosha ka fadhiisto. Laakiin markuu doonayay inuu weerarka qaado, dilaag kale ayaa meel fog ka soo muuqday isagoo adeegsanaya qori awood badan. Dilaaga labaad wuxuu si sax ah ugu dhuftay ninka bartilmaameedka ahaa wadnaha. Dagaal iyo buuq ayaa bilowday, dadkiina waa kala carareen. Waardiyaashii ninkanna waxay bilaabeen inay raadiyaan qofka Stallone oo ahaa dilaagii koowaad. Wuxuu arkay dilaagii labaad oo isku ekaysiiyey nadiifiye isagoo isku dayaya inuu baxsado. Markuu ogaaday in abaalmarintiisa gacanta kasii baxayso, Stallone wuxuu si degdeg ah u helay meel uu si fiican uga toogto. Wuxuu riday xabad balse way seegtay. Dilaagii kale ayaa isna jawaabay oo rasaas ku celiyey. Labadooduba way dhuunteen, mid waliba wuxuu sugayay fursad uga habboon ee uu ku dili karo kan kale. Markaas ayaa waardiyaal badan ku hareereeyeen dilaagii labaad waxayna ku dileen dhowr ilbirsi gudaheeda. Stallone wuu sii toogtay isagoo garanaya inuu la dagaalamayo khabiir dhab ah, laakiin halkii laga filan lahaa inuu cabsado, dilaagii kale wuxuu u muuqday inuu dagaalka xiisaynayo. Ilbirsi gudaheeda, laba baabuur oo booliis ah ayaa yimid oo xidhay wadadii baxsadka isagoo rasaas iyo khatar ku xeeran yihiin. Dilaagii labaad wuxuu qaaday go'aan geesinimo leh. Wuxuu isku dhiibay booliiska. Stallone ma uusan haysan fursad kale oo aan ahayn inuu dib u laabto isagoo daawanaya sida cadowgiisa loo qaaday oo gacmaha booliiska u galay.